صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waa barnaamijkeenii duruus ramadaaniya waa xalaqadeenii 19aad. xalaqadan waxaan kaga hadli doonaa ilaalinta soomka. qofka muslimka waxaa muhiim inuu soonkiisa u ilaaliyo, uu ka ilaaliyo wax walba oo soonka dhib u keenayo oo cibaadadiisa ka haleyn karno iska ilaaliyo. inuu iska ilaaliyo sida hadalka muxuu ahaa leeraad kalaam zuur oo ah hadalka beenta inuu iska ilaaliyo. inuu qofku been uu sheego waa runtii wax khatar ku ah soonkiisa muxuu ahaa kana dhigi karta inuu waayo thawaabkii iyo muxuu ahaa uu lahaa ee laga heli lahaa in thawaabka isaga uu waayay ay iman karto. nabiga kaleey salaam wuxuu leeyahay rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa al-juu'u. nabiga kaleey salaam badana mid sooman oo soonkiisna aan ka helaynin gaajo iyo haraad mooy wax kale aan ka helaynin. wala fiirso iska soomaya laakiin kama soona wax walba xumaan uu iska sameeyay beentii wax walba uu iska sheegay maanta idil. soonku wuxuu moodaa cunada iyo cabitaanka oo laga soomo kaliya soonka ma hawlaalayaal ee wax waliba oo laqwi ah wax walba yaal raba in laga soomo. sookal wuxuu nabiga rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi illa as-sahr. badana mid taagan habeenkii taagan salaad u taagan hase yeeshee aan waxba ka faa'iideyn ilaa soo jeed mooy waxba uusan ka faa'iideyn. marka waxa la rabaa cibaadada iyo amalkaaga inuu noqdo amal wanaagsan oo laga ilaaliyo wax walba falxuma. marka waxa muhiim inaynu ka fogaano waxa loo yaqaano min kalaam zuur in laga fogaado, iyo sidoo kale amal in been la sheego iyo muxuu ahaa ku amal falkeeda in muxuu ahaa qofku uu ka fogaado. acmaasha muharramada ah ilaahay uu xaraamtinimay ilaahay subhanahu wa ta'ala doomayso ka xaarantay in wuxuu ahaa qofka uu iska fogaado muhiim si ilaahay subhanahu wa ta'ala soonkiisii uu aqbalo. xadiiska nabiga wuxuu ku leeyahay sallallahu alayhi wasallam man lam yada' qawla az-zuuri wal 'amala bih falaysa lillahi haaja fi an yada'a da'amahu wa sharabahu. nabiga alayhi salaam wuxuu leeyahay qofkii aan ka tagin qawlu zuurka iyo hadalka beenta ku amal falkiis ilaahay subhanahu wa ta'ala dan kamala inuu cunno iyo cabitaan isaga tago waxa ilaahay wuxuu dan uu kala yahay malaha. marka walaalayaal waxa muhiim maadaama aad sooman tahay oo wixii xalaasha aad ka soontay, xaaskaaga xalaasha aad ka soontay, cuntadaada xalaasha aad ka soontay, cabitaankaaga aad ka soontay, walaalkayga muslimka oo maxaa diiday waxa falxumada iyo muharramaadka in iska dayso ka soontay, taas ku khayr badan. waxa kale oo muhiim qofka sooman waxba soonkiisa uu kula kala waxa kamid in waxyaabaha jaahilnimada uu iska ilaaliyo, sida muxuu inuu dagaalamo ama muxuu ahaa uu dadka u aflagaadeeyo inuu iska ilaaliyo waa muhiim. xadiiska nabiga wuxuu ku leeyahay alayhi salaatu wasalaam wa nimruun qaatalahu. xadiiska wuxuu ku leeyahay nabiga alayhi salaatu wasalaam qofkiin fa in saabahu ahadun aw qaatalahu falyaqul in imruun saa'imun aw kama qaal sallallahu alayhi wasallam. qofkiin nabiga alayhi salaatu wasalaam hadii qof uu aflagaadeeyo ama uu la dagaalamo ha yiraahdo ani waan soomanahay iga raal noqo qof sooman ayaan ahay. laakiin adigana aflagaadeyso isaguna uu ku aflagaadeeyo oo la is aflagaadeeyo waxa halka ka baxay thawaabkii ajirkii soonka laga heli lahaa waxaas oo way ka baxayaan walaalkayga muslimka ah. sida awgeed naftayda iyo tiina waxaan u daarmayaa inaynu soonkeena ilaalino walaalayaal oo aynu ka ilaalino wax waliba oo dhibaato u keeni kara. wajazaakumullahu khayr. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.